bixi karaa midkii gabadheeda qaba wuxuu ku dhahmaagaa maadaama aa waayiltiin shaqaale ma qabsatiin laakiin iyada waxay ku dhehaysaa adigu miga aamusi kartaa hal mar waxaan ogahay inaad adigu maalin kasta shaqo raadiso aanan weyso sidaas darteedna ay gabadheedu maalin kasta adiga ku caawiso midda ninkeedii waxay u sheegaysaa inakeen meeshan waa isaga tegaynaa waxaan u malaynaa inaan waqti qaldan imaanee maalin kale midii duqdeed waatana ay gurigeeda dib ugu soo laabatay iyadoo habeenkii oo dhan maqneed ninkii dhalinyarada ahay oo saaxiibkeed ahay waxay u sheegaysaa inuu hadda gudaha soo geli karo odagana waxay ku dhehaysaa anaga xal oo dhan aan soo daalinay sidaa darteed meeshan waxaan u nimaanay inaan ku nasanno xoogaa saaxiibkeeda wuxuu weydiinaa adiga ma ka xishoonaysid miyaa in naag la qabo aad gurigeeda u soo raacdid laakiin midkaan lacaga u cad intuu biyaha dhulka ku daadiyo odaga waxaa ku dhahaniyo meeshan wasaq waayo xoogaa ma naga tirtiri kartaa iyagoo rabaan inay guriga gudaha u galaan albaabka lagu soo gargaraaca markii ay furto waa duqdii ay ninka odaga jaamacadda isla bari jireen markii ay yaraayeen waxay weydiinayeen ninka odaga ahay oo gurigaan lahay aawe maalin dhaweyto boorsidiisa gaarigayga kusoo dhex iloobe boorsadii intay ka qaaday waxay ku dhehaysaa saacadda ninkayga ma joogo waa maqan yahay iska bax aniga u geynaye laakiin iyadu waxay arkaysaa ninkii odaga ahay oo dhulka tirtiraya midaan waxay bilaabaysaa inay albaabka xirato midaan markay arrintaas aragto waraaqadan odaga waxay ugu qoraysaa haddii caawimaad u baahan tahay la soo xiriir maalin kale ninkii odaga ahay isagoo guriga banaankiisa hagaajinaya labadii u imaanaya waxay taagan tahay hadda anigii saaxiibkay waxaan rabnaa inaan banaanka u baxno si aan waqti u soo qaadano asna waa kana wuxuu arkaa waraaqadii u qorta midii ay jaamacadda isla dhigi jireen isagoo cunno karinaya mar labaad gabadhiisii u imaanay xooga ay wada sheekaysanayeen kadib waxay ku dhehaysaa waxaan rabaa xaaladda adiga iyo hooyada idinka dhexaysa maxay ku bilaabatay wuxuu u sheegaa in hooyadeed ayaantan ay la socoto nin dhalinyaro ah isaguna uusan ku qanacsanayn meeshan uu rabo inuu ka tago aniga ku caawinaya xaafadeeda ii soo raacay ku dhehaysaa laakiin isagu wuxuu u sheegaa hadda inuu jiro qof kale oo rabo inuu isaga caawiyo waraaqadii intuu soo bixiyo wuxuu la xiriiraa midii ay jaamacadda isla dhigi jireen intii u timaado wuxuu ku dhahaa waa kaaga mahadcelinaa maadaama aad i caawisay waqtiga aan anigu ugu baahida badnaay midii kale waatana way iskeentay waxay weydiinaa adiga maxaad ku fikirayay waxaana ii sheegtaa hadda meesha aad rabtay inaa aado wuxuu ugu jawaabaa aniga waxaan go'aansaday maanta laga bilaabo inaan meeshan sii joogin oo aan ka tago intay qososhay halkay rabtaa in aado ku dhehaysaa mise waxaad rabtaa inaad sida derbijiifyada derbiga ku noolaato wuxuu u sheegaa maya sidaas ma dhacayso gabadheyda ay caawinayso iyadu marnaba ma iloobaysa xaaladan anigu ku suganahay oroday ku dhehaysaa fasaxa tahay waa bixi kartaa laakiinse waxaan hubaa inaad dib u soo laabo doonto weliba adigoo calacalayo oo aniga i baryaayo si aad dib ugu soo laabato midaan kale waxay taagan tahay arrintaas muhiim maahan duqa waa ilaasho weysa maahana waa lagu ilaalina iyagoo rabaan inay baxaan waxay isku dayaysaa inay celiso isla markiina gabadheeda intay meesha soo gaartay waxay ku dhehay dhibaatadaada ha ka tagay iska daay sanado badan waxaan arkayay sida aabbahay ula dhaqmayso haddana wuxuu u qalmaa inuu nolol fiican ku noolaado isaguna wuxuu weydiinaa saaxiibka dhalinyarada ahay wuu joogaa soo maahan orod isaga aad noloshana ku raaxaysta haddeertaana waxay ku calaacalaysaa adiga si wanaagsana kula dhaqma hadda kadib soo laabo muuqaalkan intaasoo ka ekaya hadda halkaas soo gaarta leegnosa